Engineer Yaasin adiga iyo dhageystayaasheena qiimaha leh ee sharafta leh ee Soomaaliyeed ba aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin xiriirkaaga. Runtii wararka maanta waa sabti shaqooyinkana waa lagu soo noqday dhammaan dalalka Islaamka gaar ahaan dalalka Carabta oo ay xiisadan lixaad kale ay runtii u dhaxaysay. Dabcan waxaana wali soconaya diblomaasiyad xooggan oo dalalkan ay runtii ay si xooggan uga wadaan dunida gaar ahaan wadamada reer galbeedka iyo wadamada Islaamka labadaas qaaradood ayay aad uga kala wadaan. waxaana muddo wadamada qarbigu inay arrinta si xooggan ay runtii ay maartay ay isku siinayaan halka wadamada Islaamka oo Turkiga iyo dalka Kuwait horboodayaan iyaguna ay dadaal xooggan ku jiraan. balse waxa arrinta wararkeena maanta ku soo qaadan doonaa qodobo runtii dhowr ah oo ay ugu muhiimsan tahay safarkii balaga dhursugayay si weyn looga dhursugayay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga ninka la yiraahdo Mevlut Cavusoglu oo ku sugan magaalada barakaysan ee Makka halkaas oo kula kulmay boqor Salman bin Abdulaziz Al Saud oo ah boqorka dalka Saudi Arabia. labada hogaamiye ayaa wasiirka iyo hogaamiyaha ayaa waxay ka wada hadleen qodobo dhowr ah oo ku saabsan arrintan. waxaana la sheegay in shirkoodu uu shir albaabadu u xiran yahay oo runtii aan warbaahinta loo ogolaanin. waxayna ka wada hadleen labada nin sidii arrintan loo qaboojin lahaa iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga uu xaqiijiyay in dalka Qatar uu diyaar u yahay inuu ka garbaxo dalalka kale isla markaana uu miiska soo saaro wax allaale wixii dabcan ku shaki saaraya dalalkan balse iyagana looga baahan yahay inay wax cad keenaan. waxaana warbaahinta la yiraahdo Reuters wakaalada wararka Reuters iyo takale waliba Faransiiska laga leeyahay AFP la yiraahdo labaduba laga soo xigtay in wada hadalladaas wasiirka arrimaha dibadda Turkiga iyo boqor Salman ay yeesheen ay ku dhamaadeen bal la yiri horumar dhinaca diblomaasiyadda ah walow aan wax tafaasiil laga bixin wax horumarkaas noqon karo balse waxa la yiri horumar dhinaca loo diblomaasiyadda ayay arrintaas ku dhamaatay. waxaana la rajeynayaa in maalmahan soo socda ay arrintu ay sii socoto intaynan ka bixin safarka wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ku sugan magaalada Makka al Mukarrama ayaa waxaa iyadana soo wajahay xogaa maartay qalalaasaha kadib markii laba wariye oo la socday wasiirka la xiray oo muddo lagu hayay muddo 10 saacadood ay ciidamada amniga ee dalkaasi hayeen. labadan wariye oo ka tirsanaa TV-ga ama xarunta warbaahinta la yiraahdo TRT ayaa waxay la sheegay in si kumeel gaar xubnaha Sacuudiyiinku ay ugu xireen isla markaana ay su'aalo weydiiyeen iyadoo labadan xubnood ay kala ahaayeen nin Pakistani ah oo u dhashay dalka Pakistan u dhashay wariyaha oo la yiraahdo Xasan Cabdullah iyo cameraman-kiisi ama qofkii kamarada u hayay gacanta ugu hayay oo la yiraahdo Nihad Yemen oo asagu u dhashay dalkaasi Turkiga. waxayna sheegeen mar uu hadlay ama Twitter-kiisana uu ku qoray qoraal ninka la yiraahdo Xasan Cabdullah wuxuu sheegay in wax laga weydiiyay su'aalo fara badan laga weydiiyay arrinta Qatar iyo sidii wararka Qatar u wajahan ama wax uga qoraan ama wax u tabiyaan. waxaana xarigooda ka qayb qaatay kadib markii wasiirka uu telefoon u diray boqorka isagoo wali hotelkiisa ku sugan. waxaana la sheegay in iyagu wariyaasha laftooda la deganaayeen wasiirka hotelka uu kaga sugnaa magaalada Makka. kadibna waxaa la sheegay in boqorku uu amray in la soo daayo isla markiina la soo daayay muddo 10 saacadood markii la hayay. wuxuuna ka mahad celiyay Xasan Cabdullah sida ay ugu halgameen ama ugu dadaaleen buuri qonsuliyadda magaaladaas Makka al Mukarrama ay ku leeyihiin Turkiyiinta iyo waliba wasiirka laftiisa oo ay safarka ku heliyeen una kamid ahaayeen wariyaashii la socday ee tabinayay safarada lixaad kale ah ee bariga dhexe ku mareeyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga. sidoo kale Yaasin wararka xiisaha leh waxaa kamid ah xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Rex Tillerson oo ah diblomaasiga ugu sarreeya dalka Mareykanka oo runtii asagu ka muujiyay arrintan dhexdhexaadnimo fara badan oo lixaad leh ayaa la sheegay inuu kansalay ama joojiyay safar uu ku tagi lahaa toddobaadkan magaalada Mexico City ee dalkaasi Mexico oo uu ka dhacay kulanka ururka ay leeyihiin dalalka qaaradda America oo lagu qabto halkaasi sanad walba. waxaana la sheegay in safarkiisa uu baajiyay inuu ka shaqeeyo baa la yiri xaalad mashquul oo bariga
dhexe isla markaana uu ka qayb qaato buu yidhi dadaalada xoogan ee socda ee lagu xalinayo buu yidhi qalalaasaha siyaasadeed iyo kuwa diblomaasiyadeed soo kala dhexgalay dalalka qatar, sacuudi carabiya, baxrayn, imaaraadka carabta iyo dalkaasi masar. wuxuuna afayeen u hadashay waaxda arrimaha dibadda dalka Mareykanka Heather Nauert waxay sheegtay in wasiirku uu joogayo xafiiska isla markaana uu ku mashquulsan yahay telefoonno fara badan oo bariga dhexe ah oo doonayo in arrintan bariga dhexe sida ugu dhaqsaha badan in loo soo afjaro. waa sida ay sheegtay Miss Heather oo u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda dalkan Mareykanka. waxayna sheegtay inay runtii aad uga xun yihiin bay tiri in arrintan ay sii socoto, balse waxay ku nuxnuxsatay in wasiirku uu doonayo in xiisada la qaboojiyo isla markaana sida ugu dhaqsaha badan miiska wadahadalka la isugu yimaado. sidoo kale engineer waxyaalaha kamid ah wararka xiisaha leh maanta waxaa kamid ah in shir dhanka telefoonada wada jira ay yeesheen madaxweynaha dalka uu waliba soo qaban qaabiyey madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhigiisa dalkaasi Faransiiska madaxweynaha dhawaan la doortay dhalinyarada ah Emmanuel Macron iyo boqorka dalkaasi ama amiirka aan iraahdo dalkaasi Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani waxayna ka wada hadleen sida ay daabacday wakaalada wararka ee dalkaasi Turki Andalus in ay madaxdan saddexda hogaamiye ay isdhaafsadeen bal waxyaalihii ugu dambeeyay ee maartay gobolka iyo sidii loo qaboojin lahaa xiisada. waxayna isku raaceen labada nin ee iyagu shirka dhexdhexaadinayay in ay Qatar mar walba ay diyaar u noqoto in miiska wadahadalka soo fadhiisato. waxaana warar diblomaasiyadeed sheegayaan in hogaamiyaha Qatar uu xaqiijiyay labada madaxweyne inuu ku taageersan yahay dhexdhexaadinta ay wadaan, iyadoo Faransiiska madaxweynahoodu dhawaan Marwo ka tagay halkaan uu ka dhawaaqay inay taageeraysan yihiin wadahadalada iyo diblomaasiyadda ay wadaan dalkaasi Kuwait. waxayna warka qoraalka lagu sheegay in madaxweynaha Turkiga uu si weyn ugu booriyay dhigiisa dalkaasi Faransiiska inuu arrintaas si buuxda u soo galo oo uu xoojiyo dadaalada Turkiga iyo Kuwait isla markaana arrinta wada hadal la qabto sida ugu dhaqsaha badan ayuu yiri. waxaana telefoonka dhex maray saddexda hogaamiye uu ku soo beegmaya iyadoo si xoogan u bariga dhexe uga wado socdaalo xiriir ah oo sida hilaaca u maray dalal dhowr ah. wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Turkiya ninka la yiraahdo Mevlut oo asaguna haatan ku sugan magaalada barakeysan ee Makka al Mukarrama oo kula kulmay boqorka dalkaasi lana sheegayo in uu ka soo baxayo calaamado wanaagsan oo muujinaya dhanka horumarka siyaasadda iyo in isugu yimaado miiska wadahadalka. sidoo kale horey in badan ayaan u sheegnay in wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Qatar iyo dalka Sacuudi Carabiya waa nimanka la kala dhaho Maxamed Cabdiraxmaan Al Thani iyo Adel Al Jubeir ay si xoogan caalamka uga wadaan olole ay qolo walba taageero uga raadsanayso dalalka caalamka. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sacuudi Carabiya Adel Al Jubeir oo asagoo hal mar nasan tan iyo intii xiisadan ay qaraxday bishan June 5teedii kadib markii subaxnimadii Isniintii ee bishan 5 ahayd lagu waabariistay qaraar ka soo baxay wadamadaas afarta ah saddexna ay ku jirto ururka GCC midna uu yahay dalkaasi Masar oo ay dhamaan xiriirkii iyo godoomin dhanka dhaqaalaha iyo siyaasadda ah ay ku galiyeen dalkaas lagu waabariistay tan iyo intaas. wasiir Adel Al Jubeir hal mar safar kama fadhiisan wuxuuna runtii durduro ku maray wadamo fara badan oo caalamka kamid ah oo bariga iyo bartamaha qaaradaha kala duwan ah. dhamaantoodna wuxuu xoojinayay inuu iibiyo siyaasadda lagu godoomin Qatar iyo in uu dunida u sheego in Qatar ay taageerto kooxaha mintidiinta ah. waa sida uu sheegay wuxuuna haatan ku sugan yahay magaalada London dalkaasi Britain. wuxuuna halkaas kaga dhawaaqay in dalkiisa iyo dalalka kale ay ka shaqeynayaan buuri liis ay ku qoran yihiin buuri khaladaadka waaweyn ee ay dalkaas u sameeyay wadalka Qatar isla markaana ay kala shaqeynayaan buuri dalalka kale ee saaxiibadooda iyo ay arrintan ama ugu yeeray wadamada ay yihiin waxa loogu yeero xulufada soke ama xulufada sokeeye. wuxuuna sheegay in dalalka Bahrain, Imaaraadka iyo Masar ay haatan diyaarinayaan buuri liis dhameystiran oo ay la imaan doonaan oo qadariyiinta lagu tusi doono buuri sida ay runtii u sameeyeen khaladaadka waaweyn ay tahay inay ka jawaabaan. wuxuuna yiri
kaasu wuxuu noqonayaa liiskaas wuxuu noqonayaa liis si xaqa loo qoray loona diyaariyey isla markaana la kulmay buu yidhi dhammaan cadaymo iyo arrimaha ku saabsan ee dalkan qatar lagu haysto wuxuuna sheegay in arrintaas ay dhici doonto sida ugu dhaqsaha badan isagoo halkaasi carabka aan ku dhufanin wadanka ay u gudbinayaan balse horey ayaa waxaa jiray in wararkii soo baxayay sheegay in dalka Mareykanka ay u gudbiyeen liis ay ku qoran yihiin eedaha loo haysto dalkaasi qatar ay tahay inuu ka jawaabo ama uu dalalka kale uga soo garbaxo waxaana dhammaan uu sheegay wasiirku kuna nuxnuxsaday in dalkiisu uusan marnaba diidanayn in arrinta wadahadal lagu dhameeyo balse wuxuu sheegay inay tahay in qatar ay yaqiinsato buuri khaladaadka waaweyn ee ay gashay isla markaana ay ku soo dhawaato buuri xaajada oo ay ka run sheegto buuri dhacdooyinka ay samaysay ee bariga dhexe ku wado iyo faragelinta siyaasadeed dalka iyo taageerada buuri kooxaha wax qarbuda wasoo hadalka u dhigay Adil Al-Jubeir oo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi boqortooyada Saudi Arabia sidoo kale Yasin ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi Turkiga Numan Kurtulmuson ninka la yiraahdo ayaa wuxuu sheegay in arrinta u dhaxaysa dalalka khaliijka sida ugu dhaqsaha badan loo xalinayo maadaama uu yiri arrintu salka waxay ku haysaa wax la abaabulay oo aan sax ahayn wuxuuna yiri arrintan ma aha arrin dhibaato balaaran oo wuxuu yiri diblomaasiyadeed waana arrin ku fadhida buuri ama ku abuurantay ayuu yiri si aan sax ahayn oo aan loo haynin buuri wax ay sal u tahay wuxuuna sheegay in sida ugu dhaqsaha badan arrinta loo xalinayo wuxuuna rajo fiican ka bixiyay ama ka muujiyay in arrintan la soo gabagabay doono sida ugu dhaqsaha badan horeyse dalkiisu wuxuu ugu nuxnuxsaday inay tahay in intaan la gaadhin maalinta Ciidul Fidriga arrinta la dhameeyo balse arrintaas ilaa hadeerto waxa muujinaya inay isku soo dhawaansho ilaa xadkaas oo arrinta wali hadaan wada hadalada xitaa furmin ay adag tahay ilaa inta ku qabsoonto inkastoo markasta ay fiican tahay in la rajeeyo dhinaca wanaaga in arrimuhu dhamaadaan balse dadaalada ay wadaan Turkiga iyo dalkaasi Kuwait iyo Faransiiska iyo Mareykanka oo waliba asaguna hadeerto wasaaradda arrimaha dibadda ay mar walba ku celcelinayso waliba xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu si xoogan ugu celcelinayo inuu arrinta ka shaqeynayo ay tahay in lagu daro wadamada haatan dhexdhexaadinta buuxda sameynaya sidoo kale hore waxaan u sheegnay shalay aan u taminay in hay'adda u qaabilsan dalkaasi qatar arrimaha xuquuqda aadanaha ee la yiraahdo NHRC ay kiiska geeyeen ama arrinta ay geeyeen waaxda qaramada midoobay u qaabilsan baaritaanada iyo xaqiiq raadinta iyo sidoo kale kooxda loo yaqaano xuquuqda aadanaha ee magaalada Geneva waxaana halkaas si jirayd ku qabtay magaalada Geneva agaasimaha ama gudoomiyaha hay'adaas oo reer Qatar oo la yiraahdo Ali bin Samikh Al-Mari wuxuuna ugu baaqay qaramada midoobay iyo hay'adan xuquuqda rayidka u qaabilsan ama guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee fadhigoodii ay halkaas in arrinta xanibaadan lagu sameeyay dalkiisa oo saameysay buuri 13,000 oo qof oo runtii u dhashay dalalka khaliijka in lagu tilmaamo inay khalad tahay oo ay tahay buuri mid ka daran ama ay ka xun tahay buuri darbigii Berlin markii dagaalkii labada adduunka u dhamaaday la dhisay wuxuuna runtii ugu yeeray arrin nasiib darro ah oo saameysay buuri qoysas fara badan oo la kala geeyay isla markaana wuxuu tusaale u soo qaatay wuxuu yiri nin ka soo jeedo dalka Saudi Arabia ayaa wuxuu ku dhintay buuri ama uu tii alle ugu timid dalka Qatar waxayna damceen buuri wiilashiisii inay qaataan oo ay damceen inay ku aastaan dalkooda balse waa loo diiday buuri oo Sacuudiga ayaa u diiday in ay qaataan meydka aabahooda oo ay ku aasaan meesha uu ku dardaarmay oo ahayd gurigii meesha uu ku dhashay waxayna taas noqotay wiil anagu mas'uuliyadda qaadano oo aanu aasno ruuxii maadaama la diiday buuri ehelkiisii inay Sacuudiga ka yimaadaan wiilashiisii ay geystaan ninkaas oo hore u deganaa ama ugu sugnaa dalka Qatar dalkiisii uu ka soo jeeday oo ahaa Sacuudiga sidoo kale wararka ugu dambeeyay Yasin waxay sheegayaan in dadaalada socda dhamaantood ay muujinayaan in kala jijidasho
xoogan ay ka socoto caalamka dhammaanna wasiirada arrimaha dibadda ay ku mashquulsan yihiin sidii ay arrintan kalsooni ugu raadsan lahaayeen waxaana durbaba cawaaqib xumadii ka dhalatay arrintan murankeedii ay soo gaadhay geeska Afrika horey waxaanu sheegnay in dalka Soomaaliya ay cadaadis fara badan uu la kulmayo sidoo kale dalka Djibouti iyo dalka Eritrea oo runtii labaduba taageeray dalalka Sacuudiga hogaaminayo ayaa hadda dagaal qarka u saaran waxaana qaramada midoobay soo gaadhay dacwad ay Djibouti soo gudbisay oo ku baaqayso in laga saaro ciidamada Eritrea oo qabsaday Ras Dumera oo halkii ka baxday dalka Qatar oo ahaa dalkii markii hore isagu dhexdhexaadinayay kadib markii labadaas dal ay 2008 isku qabsadeen xuduudda buuraleyda ah ee labada wadan kala qaybsa halkaasna ciidamada Eritrea horey u soo galeen oo u qabsadeen balse qadariyiinta arrintaas ay ka wadawadeeyeen kadibna ay geeyeen ciidan 450 kadib markii labada dal ay la safteen dhinacna ay ciidankoodii qaateen sidoo kale golaha midowga Afrika ayaa waxa soo gaadhay iyaduna dacwad ay soo gudbisay dalkaasi Djibouti oo ay kaga dalbanayso inay tallaabo ka qaadaan waxayna Djibouti ku hanjabtay inay tallaabo military arrinta ay tagi karto haddii aan sida ugu dhaqsaha badan halkaas looga qaadin ciidanka sida uu xaqiijiyay gudoomiyaha midowga Afrika Musa Faki ayaa waxay ka walaacsan yihiin xaaladda ka socsoonatay labadan dal wuxuuna ku tilmaamay in arrintan ay tahay cawaaqib xumo soo food saartay qaaradda wuxuuna sheegay in sida ugu dhaqsaha badan ay gudda xaqiiq raadinaya ay Djibouti u dirayaan balse loo soo hubiyo bay yiraahdeen waxa ka soconaya Ras Dumera yaasin adiga iyo dhageystayaashu aad u mahadsantiin mar walba wararka weyn la socon doona Aisha Nawir ku hay doona